inta badan darawaliinta gaadiidka shirkadda Dhaweeye ayaa saaka banaanbax ka sameeyay koonfurta magaalada Hargeysa waxaana halkaasi kaga cabanayeen lacag dhanka ku hadalka iyo adeega dalbashada dadweynaha oo shirkaddu kordhisay hase yeeshee wax yar oo markii uu socday banaanbaxaasi waxa goobtaasi soo gaaray ciidanka booliiska Soomaaliland oo halkaasi ku kala dareeriyay gaadiidkii halkaasi ku sugnaa ogolaan midna maaha inaan ogolnay laamaha amiga ma la xiriireen laamaha amiga waa la xiriirnay marka iyagana u xidhan go'aan ka soo saarnaa laamaha amnigu dooni mayno tacaadi dooni mayno inuu diidan yahay saxaafadu teeniyo nimankan wallahi garin waxa loo u jeedaan nimankaas inuu weyn laakiin nimanku waxay doonaan naga yeeliyeen ragna way iska xirxireen ciidanku marka anaguna gawaadhida anaga iska marka horeba iyagu gawaadhi uma nawdi kawdhe marka jawaana waxa goosanayaan 8 shilin 100 shilin hadaan shaqeeyo waxa goosanayaan 20 shilin waxa weeye nimankan iyo arrinka ay la yimaadeen anagu ma ogolin daan darawaliintanay waxaan doonaynaa inaan halkan maanta aanu kaga cabanno ka cambaarayno shirkadda Dhaweeye xataa wax kale iska daa ciidan booliis ah loo adeegsaday darawaliin baa naga xiran dhibtaas aanu qabnaaniyo waxaanu ka codsanaynaa mas'uuliyiinta dawladda sharafta leh arrinteedan fara degdeg loo soo geliyo iminka hadii wax laga qaban waayo hadhow tooliyaan la soo calaalin anagu waxaan doonaa sameeynaaniyo oo xitaa xafiisadan gubeynaan galin hadii wax laga qaban waayo arrinteeda talabaad waxa weeye nimanka Dhaweeye anagu hadii arrinka soo rigeen lacag naga goosanayaan yoomkii 10 shilin baan ogolay Dhaweeye karaasay anoo kareey markaa laakiin anagu wax kale ma ogolinayo 10 shilin waan ogolay hadii dooniya maalinkii laakiin anagu wax kale dulmiye ma ogolin tan waa dulmi cad nimankan sheeko burcad bay leeyimaadeen dulmi caadi iyo cadaan bay wadaaniyo ya dhalinyaradii Hargeysanayday taariibkii iyo hawlihii iyo wixii baan ka mid iminka wax allaale wax hay'adda kaasida TBS-taana waxa ku kawdhe marka wasaaradda waxaan ku codsanaa in programkan hawada laga saaraba ya hadaan sidaa hore noo ahayn ya hadaan xor loo ahayn sidaa hore noo ahayn in hawada laga saaraan doonanayo kawdhe noqon weeyday anagu Dhaweeye ahaan darawal ahaan meel kale oo tagayna ma jirto shirkadda anaga lafahaygii dhidkaygii soo aasnay Dhaweeye anaga la sumcad anaga halka soo gaarsiinay anaga islaama Hargeysa iskaxda u galnay islaanta caaniga Dhaweeye ba kuna joog kawdhe marka anaga magaalada Dhaweeye galnay Dhaweeyna waa anaga shirkadna ma ahan xafiisna ma aha inay raasigu waxay ma waa anaga kaba kuleelka qaadnay kolba raf kulaabina kawdhe marka Dhaweeye waa anaga shirkad kale oo tagayna ma jirto ama Dhaweeye sidaa hore noo ahaan laga hayb lagu soo rogeen nimankan anaga heer ka gaarsiinay oo dadka baray kawdhe maanta waxay yiraahdeen waxay doonaan meelis naga yeeleen anaguna waxaan ka yeeli karnaa waxaan ogolaan midna maaha inaan ogolnay waa princess salaadii markaan soo shaqo taga lacag la soo rogay oo application lagu soo rogay hal lagu soo rogay lacagta application lagu soo rogay nagalama tashan waxna noo sheegin on target ayagu ay leeyihiin maskaxdooda ka dhaadhiciyeen ay ku goosteen marka 65 budgetka la goosanaya hadee macquul tahay 65 kun qofku marka uu gaaro dakhligiisu automatic waxa saadaada laga baxaya oo ku shubanaysa $1 oo dhameystiran waliba lagu sarifay gacanta dambe 8600 shilin marka gaadho 105 marka gaadho 130 waxa ka go'aya $2 marka dakhliga uu gaadho 195 waxa ka go'aya $3 ilaa saasay ku soconaysa $4 $5 $6 marka halkan waxaan ka cambaaraynaa dhammaan bahwadaagta dalada Dhaweeye ee shirkadda Dhaweeye maadaama ay iyadu waxaan oo fawdaa iyo kicin dhalinyartii wadanka ay ku sameysay marka arkayga waxaan ku soo ururinayaa 3 qodob oo muhiim ah inaan taabto oo halkan baraha bulshada kula waraago oo gudbiyo waa qodobka koowaad waa lacagta xogteedu waa sida waxa dalada Dhaweeye ku midaysan dhalinyartii wadanka oo iskugu jira waayeel caruur qaar tahriibka oo tahriibka kaga baaqday iyo muxuu hadallo kale muxuu haayay tacaadiya kowdadii ayaa maanta ay keeneen inay yiraahdaan dantaydii waan iga gaarnay waxaan dad aan ku dul guureynay dad aan ku daneysanaynay inay heerka maanta inuu soo istaajiyaan dawo u gar horta oo anaga nacasnimada isdhignay oo halka waxaan ku dhisdhignay ma garatay mana u dul qaadanayna imika wixii ka dambeeya inay saan noola dhaqmaan ma fahanti mana u dul qaadanayna inay muxuu haayay ay waxay doonaan naga sameeyaan anagu waxaan muwaadiniin dhalinyaro ah oo dalkan muxuu haayay dan iyo muxuu haayay wax badan muxuu haayay u soo taray ma garatay aabayaasha iyo dadkina dhalayba dalkan adarkiisa nimadooda sidoo ku taagan yahay ragii ka dambeeyay ma dhalay dad cidlaayo oromaayo magaalada soo galay manihin ma fahanti inay yaroo danaystii inuu saan noola dhaqmo diyaar ma nihin
مسؤولية الشركة يلا أنها دولة ما الحريرة weli lamaanu xidhiidhin laamiyada muxuu ahaayeen mas'uuliyiinta shirkadda waabay og yihiin dii xaaladda iyagaa soo dejiyey waxaanu kala xidhiidhnaa baan jirin ma garatay wax allaaliyo waxaanu kala xidhiidhno ayaan jirin oo ay og yihiin xaaladdu say tahay dalka korona ku jiraa kala go'an buu ku jiraa sixir bar buu ku jiraa shidaalkiyo kordhay wax loo sixir bar loo kordhay marka بدر محي الدين حسين بدر واحد
dhalinyarada ku shaqaysata tagaasida ee gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan adeega dhaweeya oo mudaharad balaaran saaka sameeyay waxa cabasho balaaran ka muujiyeen xadiya lacaga oo adeega dhaweeya ku soo kordhisay shirkadaasi